بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خليفة فرح يير وحان هلكن ku qabanaya maanta gabay leeyahay baaq oo daba socda gabayga Bereer ee uu sameeyay uriyay abwaanka cabqariga ee aragtida dheer fogaan araga saaxiibkeenaga Cali Khaliif oo ku sugan magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya. gabaygaas oo runtii ka hadlayay waayo badan iyo waqtiga cakaran ee ummadda ku jirto guud ahaan gaar ahaan ninkii muwaadinka ahaa ee dhaladka ahaa halgamaaga ahaa ee dawladdeena iyo xukuumaddeena ay u dhiibtay dalka Itoobiya oo uu muddo ku dhow 24 sano kula jiray halgan xornimo doon ah. anigoo arintaas oo arkay runtii inay tahay khalad weyn oo taariikhda laga galay isla markaana banaynaya wax badan oo ka xiriirna dawladaha gumaystaha ah marka iyagu u tafaxaytay inay dalkan iyo dadkan ay ciribtiraan isla markaana ujeedadoodu tahay siday aniga marka ay la tahay dad badan oo muwaadiniin oo Soomaaliyeed ay la qabaan in ay maaragtay hantiyaan isla markaana la wareegaan ciida iyo dhoobada bulshada Soomaaliyeed leedahay ee ku dhaadato Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku beeray waxaan yiri gabayga baaq nageeyow abwaan buuxa oo loo bogaa tahay barakaale boqoliyo hal door beel hagaa tahay isir bile bugtada dhaawaca ararku baanbaantay hambalaashe beel iyo qabiil bahaya reer diiday isku biirshay isku boogadhaye wada jir boolaystay burcad mariya buga uumiyaha nabadku baaqbaaqay ku boqraya banaadir iyo xamar barada maandoojis bariidiya salaamaha ku hano ciida barakaysan balalaga xijaabiyo tixdaad baahisaan helaye bogan waaye jiifko qalbigu way balbalayaaye ballamaha qabyooba rajada beeniyo rogo ee amaanada bariga iyo cirkiya diida buuruhu ee bini aadamkii qaada yiri waanu baqaya alla ilaahay bad buu galay ninkii loo banaan baxay in kastuu nin baariyeeyo hool laga burhaanaysto boqolaal ka hooseeyo oo baaba ah jiray ee niman baadidiciyaha gataa beed la soo degay himilada bidhaantay rabeen inay baktiyaan in bulshadu nacdaaba la rabay oo bilaahi ee baraali isana waa ugu dhacay booshi dheerayd siyaasiga bilaash haytahee buunka tuma reerka baha qarana ciida ka badan calamo beelaysan intaasoo baliya baasa iyo 100,000 oo jaana iyo diinka been sheegatada uunka boqon gooye iyo baad ku naax baa hantiyay beledkii Soomaal basaas iyo amxaar baa arlada baabasho rogay berberiya hargeysiyo togdheer booramiya owdal bandarbayla boosaaso luuq bariyo nuugaasha ku badbaadi waa geesigii buulashii muduga wadnihi iyo buudii wada jirkay bahla jiifaan bulsho yahay bah qurabaatiyo beelo wadayaale cadow ku bahoobaa jiro baaba raba ee nafku waad bidaysay u sii baratamaysani waa bahaladii shalay ta gala baaba ka dhigay ee barba maalin bay cunahayaan baaqigii haray ee intaad barakacaysay colaad buun u tumanayso birlafta iyo geesiga intaad boqonta goynayso birlafta iyo geesiga intaad boqonta goynayso miya calan bir laga taagayaa midab buluugla ama ay dadka iyagu bogsoon boogta kugu taal shimbirkaba hadii baa la jaro biibi kari waaye lama jaro boqnaha ruux haduu ku gargaar baxa ee nin walaalkii beegsanaya waa barkumataal goortii halyeegii bilnaa xabasku boobayay isagoo birjeebada ku xidhan goortii lala buubay baydhabo markii loola kacay bayna lala aaday barqa goortii laga duuliyay laga boqolsiiyay raggii xamar balweynayay ee bixiyay ee dhiibay taariikhda baalmadow ku qora baranay tugtii rabbi baa badbaadshaha ah aan laga badbaadayna isagana baryada iyo ducada ugu bilroonaada inagana waxayna la banaan baratan weeyaan hooyaan wixii inaga ba'ay dani u bay hoofin waxa baaqiga ee nabdoon aynu baritaarno bulshada wada jir baa lagu hantaalimin barwaaqa ay biyihii dhaqaaqee socdaa riixi kara buura caqligii iswada biirsadaa guulo beegsade tala lagu bahoobo midaa lagu baraaraaye mar hadduu ra'yigu ka banjaro waad bahdilantahay waa inaad dhulkiinii bishaan ood barqabataane u birmada dalkiinii ayaa baahi weyn qaba ee isbaxnaasha isku biirsha talo guusha wada baafsha hana kala boqoolina bulshooy gees isugu bayra. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.